xilli maalmo ka hor 39 xildhibaan oo ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle ay mooshin ka keeneen gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Cismaan Bare Maxamed ayaa habeenkii xalay ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen uu u sameeyay kulan afur iyo casho isugu jira oo xildhibaanadaasi ay mooshinka uga laabanayeen Ahmed Umar Habeeb Jaanday oo kamid ah siyaasiyiinta xildhibaanada ku qanciyay inay mooshinka ka tanasulaan ayaa ugu horeen madasha ka hadlay. waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo xildhibaanadii keenay mooshinka oo aan ka codsanay inay ka tanasulaan ee naga ogolaaday inay ka tanasulaan hadana waxaan halkaan uga rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweynaha oo asagu marka uu arintaas dareemay xamar annaga naga soo dirooyida arintaas aada annaguna waxaan rabnaa wixii kala weyn ku soo beeray dadka way ku soo dabagaraynaa waxaanu mahad celinaynaa halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo madaxweyne ku-xigeenka hor halkaan ugu nimado asaguna arintii si sharaf iyo qiimo leh loola qaato. xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cadow oo kamid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay gudoomiyaha baarlamaanka ayaa ugu horeen warbaahinta u aqriyay warqadda ay mooshinka uga laabanayeen ku gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo weysiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabelle ujeedo dib ula laabasho mooshin ka dhan ah gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabelle kadib markaan aragnay duruufaha adag ee ku shaqeynaya baarlamaanka Hirshabelle kadib markaan aragnay inay laga marmaan tahay badbaadinta hay'adaha dastuuriga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle markaan tixgelinay ordinimada dowlad goboleedka Hirshabelle waxaan garwaaqsanay inay habboon tahay inaan dib ula laabano mooshinkii ay saxiixeen 39 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada dowlad goboleedka Hirshabelle. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle Cabdi Xuseen Geedi iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabelle Cismaan Bare Maxamed ayaa iyana madasha ka hadlay. waxa loo baahan yahay isqabqabsi iyo farasku fiiq iyo waraska sheeg inaan iska dayno maskaxda qofka inta dadka marka la kulmiyay waxa loogu talagalay in maskaxda laga faa'iideysto ayna noqonin hal qof oo yiraahdo ana meesha weyn ana u yar ana kila wax gartaa cid kale wax gartaa ma jirto adduunka wax kama jiraan bini'aadamka wax isku darsadaa waxa la isku darsaday maxaa la sameeyay jaraanjar baa la sameeyay madaxweyne la sameeyay boqor baa la sameeyay wasiir la sameeyay waxba baa la sameeyay taliyaal ciidan baa la sameeyay taliyaal ku-xigeen baa la sameeyay waxa soo dhamaas dawlad adduunka dalka kala dambeeyeen wax ma soconayaan haddaan la isxushmeyn la isqadarin qof kasta wuxuu aan lagu qiimeyn hatta kan baytuulka xaqaya ama ka xoolo jirka haddaan la qiimeyn wax xushmad ma jiro masuud Allah mooshinka waxaan u arkaa aniga in wax lagu toosinayo dadka qaar waxay u arkaan mooshinka inuu dhibaato far badan leeyahay laakiin ana waxaan u arkaa in lagu canaanayo mooshinkaas madaxda sare oo aan kowka ah waana liigu canaanto dhowr maalmood canaantaas ay ugu socotay aan isleeyahay marka canaantaas anigu waa ka soo gudbiyay madaxda kale is ilaalis marka waxaan rabaa madaxda kale adinkan saas aan idinku sheegi doonaa waxaan isleeyahay baarlamaankana mooshinka waa bartay awal ma aqoonin marka waxaan leeyahay khatarteeda ay leedahay is ilaaliyo madaxda sare xubnaha baarlamaanka waa xubnihii doortay madaxda sare xaq waxay u leeyihiin inay la xisaabtamaan xaq waxay u leeyihiin inay u sheegaan waxyaabaha khaladaadka xaq waxay u leeyihiin wixii sharciga amraaya inay raacaan aniguna waxaan u hoggaansanahay baarlamaanka shuruucda ama go'aanadooda u hoggaansanahay. ugu dambeyn ayaa munaasabada waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdillaahi Cosoble. gobashan ujeedadoodu waxay ahaaday khilaafkii soo kala dhaxgalay baarlamaanka Hirshabelle xalkana laga gaaray in la isku cafiyo gacmaha la isqabsado ay ahayd ujeedada gobashan caaw aan u dhignay waxaan rabaa inaan iyagana u mahad celiyo baarlamaanka labada qaybood caaw iyo xal alxamdulillah laba caaw inoo kala tahay xalay kala fikir downaashadii waxay keentay in baarlamaanku laba qaybood oo kala joogo ama laba meelood oo ku kala sugan yahay ama laba meelood oo ku kala showraayo laakiin waxa Ilaahay mahadiisa caaw inuu showrkiisu midaysan yahay waxaan ku faraxsanahay in
waxyaabihii mugdiga keenay ama qaska keenay in la xalliyey khilaafka ka dhashay Hirshabeelle ee khatarta u geliyay inay burburto waxaa saldhig u ahaa dib u eegis ayaa dastuurka lagu sameeyaa dastuurka in dib u eegis lagu sameeyaa hawl badan ay u baahan tahay ma aha mid qaybo xildhibaanada ka mid ah ay ayagu markaa sidii ay jecel yihiin dastuurka ummadda lagu hagi lahaa inay u dhigtaan yeenan ku indhasar caadin maamullo dekado iyo dhaqaale haysta yeenan ku indhasar caadin maamullo iyagu ganacsatadii iyo tujaartii deegaanka u dhalatay ay maalgeliyeen aan xaqiiqda dhabta ah aan wax ku shaqeyno aan xaqiiqda dhabta ah wax ku su'aalno aan xaqiiqda dhabta ahna Ismaaciil Cabdulle Sabriye Universal TV Jawhar